خبروني ونلتقي لي خليل عوني على أمر ديني للخير نعم الدليل للوفا خبروني ونلتقي لي خليل عوني على أمر ديني للخير وفا خبروني ونلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد درس كمان لوقون دي وحكو سابسية أصحاب الأخدود قصوين كي أمضي هوريكا دعي يا مسلمين تاها. علماء التاريخ قار كمدي waxay yiraahdaan waxay dhacday ahdigii masiixiyiinta ama dad ahlu tawxiid aha oo nabi ciise dadkii rumaysanaa ahaa bay ku dhacday bay yiraahdaan. waxay sheegaan inay najraan meeshan loo yaqaan ka dhacday. waxay sheegaan علماء الآثار in hadda meelahoodii la qoday qayb ka mid ah. waxay sheegaan in godadkii iyo gubitaanadii iyo wixii hadda culimada ilaathar qayb ka mid ay qodeen. laakiin markaad soo duuduubto quraanku iyo sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaam qisaska markay soo arooriyaan ma soo arooriyaan inta badan iyagoo bitafsiila qofkii qisada qabsatay iyo ablaasha magacyadoodii iyo meeshii ay ka dhacday iyo magaalada magaceedii iyo taariikhda waqtiga ay ahayd iyo tasalsulka ay lahayd. قرآنكي حديثكو انت بدن قصص كوحي وصوبر نغان قابة إلهي وحلي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصوينك أنبياء يدد كاس الله وكور رمى يقصدو دا وحا قصو جنبا إلهي عبرة هذا يا وحي وقصو جنتا هيددك عقلي عليه. قرآن كمركا قصص تربى ذنبا قصة أروري قصص كاسي ترى بدن له أو قال يا مسلم بله قال إلى هيك ورمي فرعون يا نمرود يوم حال هذا هامان يا قارون يا قوة كان وحي هاي انداد خير بلياله نبي الله كورمي كو النبي الله يبا لقى ورمي عيدما مسلمين يقول استا لقى ورمي كو لقى حق بديا لقى ورمي. قرآن إلهي سبحانه وتعالى وحين صو برنجيا صفحة من تاريخ البشرية. آدم لقى صواب الآباء عليه السلام إلى ما أنت تاريخ بني آدم كقيبة كمدة. لكن وحلا ينوق صواب برنجيا قاب سي إنه فائدة سنه. قصة ما ملك مؤتمر كي يقول لك لين محاضرة إن أيالته وقصة الله إلى أصحاب الأخدود. قلدي جدتك قصة قرآنكو سكو بمبو ورمية. سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سورة البروج وقصة الله كجور ربي سبحانه وتعالى. محدثين وحي ساء روريان حديث صهيب الرومي صحابي اللي ورنشري وساء روريي حديث كاسي حكوية صحيح مسلم وحكولوكي الإمام الترمذي في سننه كتاب التفسير وحكولوكي الإمام أحمد في مسنده وحديث صحيح يسونه. والنبي عليه الصلاة والسلام قصة نبغى وكجور رميه مفسرين توحان إليه نكاسي وحويان هي قصة طني وقصة يقصى أرورتي أصحاب الأخدود.
qisada tani duuduub ahaan waxaa ilaahay kaga warramayaa subxaanahu wa tacaala koox mu'miniina oo ilaahay rumaysay iyo boqor gaala oo isagu ilaahay diiday ama dadkaba rabbi u sheeganayay wixii dhex maray oo ah inuu godod intuu qoday dab ku shiday dabeetana iyagoo nool uu ku guray qur-aanku qisaska uu ka warramay mu'miniinta iyo gaalada dhex maray waxay yidhaahdaan mufasiriinta rag ka midii 3 qayboodba way u soo arooraan waxay soo arooreen iyada oo kooxdii mu'miniinta ahayd ilaahay badbaadiyey kooxdii gaaleedna ciqaab lagu dabargooyey wax dambena aan laga sii sheegin kooxda mu'miniinta markii la badbaadiyey kadib wax dambe ku dhacay aan laga warramin qisatu saalix qisatu huud qisaskaasoo dhan waxaa soo aroora bay yidhaahdeen qur'aanka iyadoo gaaliya muslimiinta isqabteen ilaahay gaaladii tirtiray muslimiintiina dhulka la makansiiyey oo xoog iyo dowlad weyn oo jirta ay noqdeen sidii fircawn iyo nebi muuse wixii dhex maray fircawn waa la halaagay reer banu israa'iil dowlad mumakan ah oo ballaadhan ayaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya fircawn dabadii jirtay muddo badan oo boqorra yeelatay nebiya ah nebi daawuud nebi sulaymaan ambiye kale oo tiro badan leh reer banu israa'iil bale ilaahay leeyay wakhtigooda iyo aan dunidaba ka fadilay wuxuu kaloo qur-aanku ka warramayaa masaladaa cagsigeed oo ah gaaliya muslimiin inta murankaasi dhex maray muslimka inta gam laga siiyey wax ciqaaboo dunawiyana aanu qur-aanku ka warramin waa qisadaynu maanta dul taaganay qisadaynu dul taaganay qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabi اlkhduud in la gubay laakiin wax ku dhacay qoladii gubtay qur-aanku ma sheegin lama odhan iyagana dhulkaa lala gooyey ama balaayo kale ku habsatay ama wax kale ku habsatay wuxuun baa la sheegay in qoladaasi la gubay waxaa kaloo la sheegay aakhire isna inuu ilaahay duul gubi doono ina aladiina fatanuu اlmu'miniina wاlmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu اlxariiq ilaahay isna aakhire inuu dad gubi doono ayuu ilaahay ka warramay laakiin lagama warramin iyagii wax ku dhacay qisada tan baynu markaa isdul taagaynaa qisada tan inta badan dadku qisaska waa garanaya ama qur-aanka waa la akhriyey laakiin waxaan isku dayi doonaa intaan guud maro mawaadicda ama meelaha bal culammadu waxay ka tilmaamaane cibarkaa inaan wax ka mida tilmaamo ilaahay suuradda qur-aanka ee wasamaa'i daati اlburuuj walyowmi اlmawcuud washaahidin wamashhuud intuu dhaartay sabadan buruujta le baan ku dhaartay burjiga asalkiisu waa qusuurta ama waa xusuunta waa dhufaysyadan la galay iyo qalcadaha iyo meelahan waaweyn ee dadku isku ilaaliyaan waxaa kaloo la yidhaha manaajisa sare ama qusuurta abraaj waa طabaqaadka qusuurta ah waxaa kaloo culimmadu ay ku tilmaameen inay yihiin meelaha kan socodada xidigaha sida dayaxa ama cadceedda meelahay degaan manaasishana buruuj waa la yidhaahdaa ta la yidhaha 12 minzil buu degaa ama 12 burji dayaxna la yidhaha 28 burji buu degaa qaabkaa looga warramo ilaahay wuxuu leeyahay cirka kan buruujta iyo manaasisha u saaxiibka ah baan ku dhaartay wasamaa'i daati اlburuuj walyowmi اlmawcuud maalinta labayaboohay baan ku dhaartay iyo washaahidin mid xaadiray iyo wamashhuudin ku la xaadiray ama washaahidin mid markhaatiye wamashhuudin ku loo markhaatiyey ama lagu markhaatiyey ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaana wa tacaala 3 shay oo ku dhaaranayo mid waa wasamaa'i daati اlburuuj midna yowmi اlmawcuud axaadiista nebigu waxay ku tilmaamaysaa yowmi اlmawcuudku inuu maalinta qiyaamaye waxaa kaloo soo arooray xadiidku inuu sheegayo shaahidku inuu maalinta jimcaye waxaa kaloo soo arooray xadiis sheegaya mashhuudku inuu maalinta carafaye haddaad doonto 3 maalmood ka dhig haddaad doontana shaahidkiiyo wa mashhuudku waa wax kasta oo makhluuqa bay noqon karaan ilaahay markuu dhaartay wuxuu ku dhaaranayaa qutila asxaabu اlkhduud ay laqad qutil asxaabu اlkhduud waa la laayoo la nacdalay godadka kuwii u saaxiibka ahaa godkii baa laga bedelo annaari daati اlwaquud baa la yidhi
kuwa saaxiibka ah naarta huritaanka leh ama xaabada wadata. النار ذات الوقود صفة كالو ألا نمان كان سيوا محي قورما لنا عضلي إذ هم عليها قعود بقردن يقولدن قالت صفات كالهاي وحكم إذا ما يلين وقرا مسلم كا اللين تودا يكون تلذذين لين تودا أي معان سدين كأنما رواية لطاونية بن آدم كو حيابان ملاهيده وداوضه dadki inta godad loo qoday ayaa dab lagu guraya dumar iyo caruur iyo cid walba lagu guraya madaxduna ay daawanaysaa. waxa dareemaysaa bini aadamku markuu lumo xad inuu gaadho xayawaanka muftariska uu ka daraya xayawaanku wuxuu cunayo qabsadaa laakiin bini aadam intaad gubtay inaad gubistiisa daawato iyo siduu u huruushoonayo iyo baruurta ka sheelmaysa iyo siduu jacjacleeyahay waa manzilo cajiib ah. ilaahay qoladan wuxuu ku sifaynayaa maantana waa la mid bini aadamkaasaa la tumayaa baman balaayo naabaallo dabeetana tviyada laga daawadayo waa la isku daawanaya bini aadam la gubayo. mararka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa markay dumarka iyo carruurta iyo waxaa ku dhacaan iyagaa taagnaa meel qaldan bay yidhahdaan gantaalka qolaa loogu talagalaye iyagaaba taagnaa meesha qaldan oo iyagaaba marxuum qaldaan weeyaan isagaa dembiga lahaa. أيا كانت المسألة إلهي قرآن كوحو كسفيي ضد مؤمنين لقبيه يقولون أي داوانا يعني إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون شهود بإله إليه سبحانه. إلهي وحط المامية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ضدك كان جرمي يدن بقى قالوا محي وحكلوا الدن بيا يسميين ما تشران با إلهي يري inay rumeeyeen mooyaane rabbiga casiiska ah wamaa naqamuu minhum ilaa yuuminuu billaahi alcasiiz alxamiid ilaaha lama hadiyo ee xoogga badan leh inay rumeeyeen baa dembi looga dhigay. ilaahayna waxa ay samaynayaan maxay waa shaahid ilaahay taas ku koobsay waxa ay samaynayaan inuu isna markhaati ka yahay wallahu calaa maa yafcaluun inuu alla shahiid ka yahay isna arkayo ayuu ku koobsaday. قصة هدان ينقود مرة حديث النبي كصار عليه الصلاة والسلام مثلا رواية إمام مسلم وحي شيء نبي يقول عليه كان ملك في من كان قبلكم نبي باكري بقر باكري ضد كيدين كيدين كهرية كمدة بقر كوحو لها أبو نبي يقول إن صاحرة بقر هذا الدنيا دو إنت بدن كمان مارمان عد أي كتير صدان عد أي كتير صدان مدوا عوانتي سيا أسكرتي سيا حوقي سيا وحا هذا نبقى كتير تونا بني آدم ككلوا كوجو مقيهاي مركا عد غيب كوجو رنطايا سيدا وحنا قندونا مجعلي هذا الدولة مؤمنة ضتها إلهي بالرميسة سبحانه وتعالى إلهي بغيب كوكو آمنته لكن دتكو انت بدن كمان مارمان سحر رولياشا iyo kuwa faaliyayaasha iyo kuwa qeybka ka waramaya kuwa xalaqaya dadku inay yiraahdaan imka dawladahan cilmaaniga iyagu waa ka hormareen waa been kuwa maanta jiraana sidii bay wali u isticmaalaan dunida maanta joogtaana wali sidii baa loo isticmaalaa falalawiyada iyo saaxirada iyo waxaas. ilaahay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii saaxirka ahaabaa markuu gaboobay ee boqorka sixirka u samayn jiray ayaa wuxuu boqorkii ku yidhi war waan gaboobay ee waxaad ii soo dirtaa wiil yar oo caqli badan oo aan baro cilmiga sixirka ii soo saar. wiil baa loo soo diray markaa yar oo la yidhi wiilkaa sixirka bar. wiilku halkii madrasadii sixirkee uu ku socday ninkaa sixirka caalimka ku ah markuu u tegaya sii socdo طريقه سيمري جري وحكو أركي صومعا نين راهب ليه نين راهبه وداده ميل دقن أيو أركي دبعتنا وداد كيبوس كلا يرفرستي وداد كاس موحد كي دينتي نبي عيسى كتجاي هيسته أيا وحو شرحه ويعجب قليسي وحي وداد كان يشرحي هدونا صاحركو تقا صاحركو روحي بوصو شرحه وكسر نقدا غوريغودا markuu sii socdana haddana wuxuu soo maraa wadaadkiyo wadaadka in kala xaq